dalxiiskuba wadhuuxa qaranko dhabtii qaadhismeedkay dhantadu ka kow tahaye waxaanu joognaa dooxa loo yaqaano biyo guure oo dhinaca bari kaga aadan magaalada Berbera marka xaggan hore loo socdana waxa la gelayaa biyo kulule oo biyaha dabiiciga ee buuraha iga dambeeya ka soo dhaca biyahaas oo sanadkoo dhan aan gurin dad fara badan baa goobtan u yimaada in caafimaad ay ka helaan maadaama la rumaysan yahay in biyaha buuraha ka soo dhaca ee dabiiciga ee kulul ama diirani ay ka dawan yihiin xanuuno fara badan khaasatan kuwa ku dhaca maqaarka dadka barnaamijkani waxa kow ka yahay barnaamijyo taxana ah oo aanu ku eegi doono goobaha dalxiiska ku habboon ama taariikhiga ee Somaliland kumanaan qof oo qurba joogta Soomaalida ah ayaa sanad walba yimaada magaalooyinka waaweyn ee Somaliland kuwaasoo inta badan isku kooba magaalooyinka waaweyn oo aan ka bixin bal hadda waxaan isku dayi doonaa in dadka faraha badan leh ee magaalooyinka inta badan ku kooban aanu tilmaan ka siino goobaha ku habboon in loo dalxiis tago ama loo daawasho tago ee Somaliland iyo goobaha taariikhiga ah maadaama ay nala socdaan agaasimihii wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiiska khaasatan ugu qaabilsan dhinaca dalxiiska iyo khubaro kale oo ka tirsan wasaaradda dalxiiska barnaamijkan horena qaybaha uu ka koobnaan doono waxa kamida dabcan goobtan aanu imika joogno oo waliba hore aanu ugu sii durki doono ilaa halka biyuhu ay ka soo dhacaan iyo meelo kale oo taariikhiya oo ay ka mid tahay goobta loo yaqaano biyaha dubaar ee biyuhu ay ka yimaadaan lacaba magaalada Berbera iyo waliba goobo kale oo aan idin qarinayo oo barnaamijka qaybaha dambe aanu ku soo qaadi doono oo aniga qudhaydo aan hore oo arag idin karaan hubo qaar fara badan oo idin kamid inaanay hore oo arag waxa kale oo isla barnaamijka nagu weheliyay qaar fara badan oo kamida qurba joogta ka kala yimid wadamada Mareykanka Canada iyo Britain oo iyagana dabcan inta barnaamijkan uu inoo socdaan wax ka weydiin doono aragtidooda goobahan soo booqan doono barnaamijkan haddaba aan ku bilaabo goobtan aanu maanta joogno la fahanteeda ee biyo guure waxaana iiga waramaya Maxamed Cabdi Cali oo isagu ah sahamiyaha wasaaradda dalxiiska ugu qaabilsan Somaliland Maxamed aad iyo aad baan ku